munaasabad ballaaran oo ay xilka kula kala wareegayeen xogayihii hore ee dawladda hoose degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakor iyo xoghayaha cusub ee loo soo magacaabay xilka xogaynimo ee dawladda hoose degmada Gabiley Mustafa Xaaji Cabsiye ayaa lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee degmada Gabiley waxaana halkaasi ka soo qayb galay isla markaasina goobjoog ka ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Somaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi iyo sidoo kale Shacayb Maxamed Muuse wasiirkii hore ee warshadaha iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka Gabiley ee heer gobol ee gobolka iyo sidoo kale uqaal waxgarad iyo dadweyne aad u tiro badan uqaasha iyo waxgaradka deegaanka Gabiley oo goranba halkaasi hadallo kooban ka jeediyay ayaa ka waramay waxqabadkii hore xogayihii hore Cabdiraxmaan Nuur Abakor ee ugu muddada dheer xogayaashii dawladda hoose soo maray kaasoo waxqabad ballaaran ka geystay muddadii uu xilka hayay mashaariicda faraha badan waxay ku dhaceen oo ku fureen khilaafii oo xogayaha xaqiisa ka soo joogto Cabdiraxmaan waa run oo lid dulqaad leh oo dhimashaboha ya Mustafa oo halka asla kaliye shirkadaha inuu ka yimid maamulkiisa power boha inta uu dasado walaataas waa maanaya maamulka gobolka degmada sida ay tigelinta u siiyeen bahda xisbiyada mucaaradka waxa weeyaan guusha gaarigii dhaliyay buu guusha kulmiyay gaarigii dhaliyay buu gaariga waxa weeye ninka lagu nimid waxa Cabdiraxmaan Nuur Abakor isaga ruuxantii duruuso badan oo dawladda hoose ku saabsan barnaamijka waxa weeye taana ku maadsiiyay xogayaha cusubna waynu u ducaynaynaa horta maanta waxqabadkii iyo horumarkii iyo ilooyinkii xisbiga kulmiye uu gaarsiiyey jamhuuriyadda Somaliland maayaradii gudaha deegaanka iyo muddadii xilkii aan hayay aan soo wada shaqaynay iyo labadii gole deegaan ee soo maray degmada Gabiley golihii deegaanka ee hore iyo golaha deegaanka oo cusub anana dhex martay wada shaqayn aad u wanaagsan iyo isku duubni aan marna yeelan kala qaadsanaan iyo khilaaf ragaadiyey degmooyinka jamhuuriyadda Somaliland khilaaf la'aanta iyo isku duubnida suurtageliyey inaan muddo 7 sannadood ka ahaado xogayaha fulinta dawladda hoose degmada Gabiley 7 sannadood oo ay loo qabsoomeen waxyaabo aad u fara badan oo ka qabsoomay degmada Gabiley taasoo ay ka yihiin dhammaan dadweynaha ku nool gobolka Gabiley iyo jamhuuriyadda Somaliland intii midiya ka daawatay ay ogyihiin in waxaas u qabsoomay garab joogo konsabtigeena qabadiyo iyo wax nasiina isbedelayse yaa waxqabadka laga sugayaa lagu wada celceliyo hadda wadii xaqiiska la soo jeesto la gala xanaaqo waa laga xanaaqin in ganacsatada hor jecel ilaalinaya shaqo badan dadka u qabtay u jecel runtii Cabdiraxmaan intaas ku sheegtay waa ka markhaati kacaya wixii waxqabadu halkaa ka sheegtayna waa ka markhaati kacaya waxa lagu oran doonaa iska celi maaya waxa lagu oran doonaa golaha iska celi waxa lagu oran doonaa kulli jilicsan baa tahay waxaasoo dhan waa been maalintaad adiga iyo ay iska hor timaadaan degmadan dani uma jirto Cabdiraxmaan inuu ku soo shaqeeyay sida sheegay ilaa 5 maayo ku soo shaqeeyay ceeb buu lahay wanaagsan buu ahaa ixtiraamna golaha yaga tiin idin gelinayna wanaag badan idin hayno waxaan idinka fadhina inaad kala saartaan kala huftaan kala shaandhaysaan gobolada Somaliland buuxiyay shuruudaha iyo kuwa buuxiyay Gabiley qoradii nooran haday qaar la soo raacayaan oo gol ay shuruudaha buuxiyaan runtii Cabdiraxmaan Nuur Abakor sifooyin aad u qiimo leh ayuu ku tilmaanayo marka loo eego muddada uu joogayna waa muddadii waxqabadka ugu badan uu gobolka iyo degmadaba ka hirgaleen taasi soo markhaati kama wadahiin xukuumaddii kulmiyo la kowsaday kulmiyana waa waqtiga indhaha waxqabadku ay u furmeen Gabiley markhaati baan uga nahay maadaama la soo shaqeynay Cabdiraxmaan waxa wanaagsan iyo ixtiraamka uu hayay mas'uuliyiintu la shaqeynayo Mustafana way u ducaynaynaa waxaan kugula talinayaa inaad markuu sanadku dhammaado bisha u dambaysay halkaa ay soo taagaan way fagaaraha dadka ugu yeedhaan waxay qabteen sanadkiisa inay halkaa uga akhriyaan waxaan wax qarsoodiyaa maaha 6 degmo ee gobolka wixii khilaaf ka dhaca
degmo ee gobolka wixii khilaaf ka dhaca mid aanu xalintiisa nagala qayb qaadan jirin horta may jirin cabdiraxmaan nuur abukar wuxuu ahaa nin xoogogaala oo furaha koowaad ee aan arrintaa u kaxaysan jiray waa inaad uxoog madax qaanaan doonto insha allah wax badan aynu ka wada shaqayn doono walaalkeen mustafe waan soo dhaweynaynaa isna waa nin aada u firfircoon runtii waxaan qirayaa inuu ahaa qofka koowaad ee ugu mudnaan mas-uuliyiintii la soo shaqeeyey haddii wasaarad tahay iyo haddii marka maay kacaabo xogayuhu muddada dheeraa u ahaa waxaa laga xogaya mid koowaad khibradii aad 7 sano meesha maaragtay shaqada xogeynimada xogayaha cusub mustafana waxaa leeyahay mustafana kusoo dhawow baahida dadku aad bay u badan yihiin adigana waxa lagu tuhmaya inaad kursi fadhido dulqaadkeeda la yeelo dad badan saaxiib ahaadeenna waxa isku dili doonaa kursiga marka waxa weeye halala garab galo wixii saxa wixii qaladaha loo sheego hala toosiyo waa Nimcaan Deeg Ibraahin iyo ayaan la xaaji TV qaranka Gabiley.